السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال halkan waa laba bar media waxaynu rabnaa inaan idin soo gudbino barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee qisooyinka. waxaynu markasta sameynaynaa dadka tirada badan ee nala soo xiriiraya qisooyinkooda sooma wada bandhigi karno hadba laba qof ama saddex qof intii aynu ka gaarnaan soo daynaynaa. waxaan rabnaa maanta inaan la wadaagno laba qofood qisooyinkooda oo ah wiil iyo gabadha waxay naga codsatay inaan magaceeda qarino wiilku laakiinse uu u beeray inuu magaciisa sheego. waxaan rabnaa labadaas qiso inaan la wadaagno. fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo laba bar media ay tahay markii kugu horeysay waxaynu ka codsanaynaa inaad la garayso page-kan laba bar media. haddii qaybta YouTube-ka aad ku jirtidna fadlan subscribe saar. haddii uu noqdo barnaamijkan barnaamij la dhacdana waxaan ka codsanaynaa inaad asxaabtaada la wadaagtid si aan u helno asxaab tiro badan. qisooyinku waxay ku bilaabanayaan sida tan. waxaynu soo hormarinaynaa qisada wiilkana waxaa ku xigta midda gabadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا لaba bar media magacaygu waa Jaamac. waxaan idin la wadaagayaa caawe qiso dhab ah oo igu dhacday. waxaan ahay wiil dhalinyaro ah oo da'diisu yar tahay. waxa ay haysta xaalad aad u adag sababtoo ah waxaan jeclahay gabadh iyaduna way i jeceshahay. sidoo kale waalidkayna gabadhan buu ila jecel yahay. gabarina abtiday ah oo dhaqaale haysata way i jeceshahay oo runtii in badan i caawisay. sidaa darteed tala ayaa igu ciirtay ma gabadha waalidkay ila rabaan miyaa raacaa mase ina abtiday ayaa raacaa. haddaba waxaan ka codsanayaa adinkiyo dadweynaha sharafta mudan inaad ila talisaan. waad mahadsantihiin bahda laba bar media. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Heblaye Hebel. waxaan ku noolahay wadanka Sweden. waxaan rabaa inaan idin la wadaago qiso dhab ah oo aniga igu dhacday. waxaan jeclaystay markaan barnaamijkan arkay inaan idin la wadaago oo aad tala iga siisaan arrintan igu cakiran. runtii barnaamijkan markaan arkay waxaan isla markiiba niyeystay in aad i caawi kartaan. haddii aan bilaabo qisadayda waxaan ahay hooyo haysata 3 carruur ah. waxaan ku noolahay wadanka Sweden. iminka ha ahaatee qisadaydii bilow iyo dhammaad waa tan. waxaan wadanka soo galay muddo laga joogo 19 sano. waxaan deganahay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. waxaan ahay gabar shaqaysata oo nolol maalmeedkeeda ku filan. aniga familkayga aniga ayaa ka nool. hooyaday iyo aabahayna way dhinteen. waxaa anigu 14 sano jira isoo korisay habaryartay hooyaday la dhalatay. aniga kaliya ayayna i dhaleen aabba iyo hooyo. carruur kale mayn dhalin. markii hooyaday dhimatay waxa ay soo watay habaryartay Nairobi ka timid. habaryartay waxa u jooga wiil iyo gabar. aniga Nairobi ayaan imid oo habaryar ayaa i keentay guriga habaryartay. run ahaantii si fiican ayay la dhaqantay oo booskii hooyo ayay ii matashay. sidoo kale gabadheeda oo ah aniga ina abtiday ayaan ahayn dad isku dhow oo runtii aniga waxaan u haystayba sida aabbahay iyo hooyaday walaal ay dhaleen. waxaa dhacay markii aan joogay Nairobi muddo 5 sano ah ayaa maalin maalmaha ka mid ah asxaabteedii iskuulkan isla dhiga jirnay ii sheegeen inay jiraan qaab lagu tago Yurub oo qaxooti ahaan ah oo waliba ay fudud tahay. iyaguna ay rabeen inay iska soo qoraan. anigu inkastoo markaas aan si fiican u fahansanayn haddana buufis ayaa yahaya oo waan raacay waana soo xaraystay. laakiin ismaan lahayn waa kuu soo baxaysaa. June 4 ayaan xaraystay. sheekadu iyo ila dheeraanina waxaa ii soo baxay fiisihii aniga oo filaynin. habaryartay ayaan u sheegay. habaryarna way ii ogolaatay oo waan baxay oo waxaan imid dalka Sweden. kadib waxaan go'aansaday inaan shaqaysto sida habaryartay iyo carruurta ay dhashay inaan u dacwoodo. xilligaana dhiig lama qaadeen oo dhiigu intuusan bilaabanayay ahayd. marka ilaahay amarkiis habaryartay Allah u naxariistay inta dacwadii socotay ayay dhimatay. waxaana soo haray labadii carruurta ahayd oo kaliya. aabahood wuu noolaa laakiin habaryartay ismay qabin. ilaahay wuu u fududeeyay oo waan keenay wiilkii. waxaan ku keenay ninkayga laakiin gabadha iyo habaryartay waxaan ugu xareeyay famil ahaan. sidaa ayaana abbaayo iyo wiilkii ku yimaadeen. kadib waxaa dhacday wiil ayaan isbaranay dhanka social media. wiilkii waan isfahanay oo waan isjeclaanay. waxaana go'aansaday inaan guursado. kadib waxaa dhacday in aan Nairobi u imid oon ku aqal galnay. 6 bil ayaan joogay. kadibna waxaan ku laabtay Sweden. wiilkii ayaan waxaan u xareeyay dacwo. waxaanan abbaayaday anigu aan keenay ka codsaday inay iigu dacwooto ninkayga maadaama aniga aan dad keenay oo haddana aboowe nin ahaan ku keenay. abbaayo way iga aqbashay. waxaan bilaabay dacwadii. abbaayo waxay noqotay in ay Nairobi ugu tagto
si sawirro iyo wax lamida u soo galaan. Anuu walaaltinimo ayaan wax ugu dirsaday, marnaba ismaanan lahayn ninkaaga ayay walaasha damcaysaa. ninkaaga ayay damcaysaa walaasha aad isku meel ku soo korteen oo waliba adduunka ku wada nool oo ehel u joogin. laakiin bili aadan ayaaba wuxuu yahay danayste. dhammaantood markaad wanaag u samayso ayay dhabarka kaa qaniinaan. abaayay ninkaygi kadib waxaa dhacda abaayay ninkaygi way isfahmeen oo hoos ayaa la iska mehersaday. guurkii beenta ahaayeen ku iri igu kaan wuxuu isku bedelay mid dhaba. maalin kasta markii uu soo waco baaya ka waran ayuu dhihi jiray, weligeyna kama shakin. 1 sano ayay qaadatay dacwada, kadibna wuu imaaday ninkayga. markaas arooska soo galay gabar baa ii dhalatay maasha Allah. markuu imaaday uur kale ayaan yeeshay oo wiil ayaa ii dhashay. uurkii 3aad ayaan yeeshay. intaasna way isqabaan, laakiin abaayo waxba uma aysan dhalin. markasta aniga daacad ayaan iska ahaa oo waxaan dhahaa abaayo maad iska guursatid, waqti ayaa kugu socda. aniga walaashay waxaan rabaa inay dhasho caruur aan anigu habaryar u ahay. aniga subaxii ayaan shaqo aadaa, ninkayguna waa taxi driver. 11 ayuu baxaa. markasta abaayo guriga ayay joogtaa oo hamiin ayay shaqaysaa. gabadheeda yartaa ee caruurta ayaa waxay igu dhahday, hooyo markaad baxdo aabba wuxuu dhahaa wiilasha wadoo bannaanka ku soo ciyaara, asaga iyo habaryarna waxay ku ciyaaraan qolkaada jiif. dhowr jeer ayay ii sheegtay gabadheeda, laakiin kama aanan hoos qaadin. maalintii dambe gabar dariskayga ah ayaa i dhahday, naaheedhe saaxiibka waayadan ma shaqeeya miyaa? maalin kaste baakinkayuu gaariga yaalla, tagsiga muu iska daayay? markaas ayaan shaki igu dhashay. haa ayaanan dhahay, meel kale ayuu ka shaqeeyaa. kadib waxaan go'aansaday maalin inaan iska dhigo naag shaqo aadaysa. waxaanan galay guriga meel guriga agtiisa ayaan gaarigii dhigtay. cabaar markaan ku jiray oon isleeyahay waa taymku soo laaban jiray baan waxaan arkay gaarigiisa oo baakinka ku jira. si toosa ayaan guriga u soo abaaray. sidaan u soo socday meel kale anigoon ku leexleexan waxaan galay qolkayga jiifka. nasiib darro waxaan ugu tegey qolkaygii jiifka oo hawl kale ka socoto. isla markiiba waxaan go'aansaday oon gabadhii ku dhahay guriga iiga bax intaan dharkeeda u soo xirxiray. asagana waxaan ku iri, fadlan wejigaada iga qariyo, naagtaada raac. ninkii hadda muddo 3 sana ayaan saan ku kala maqannahay. gabadhiina way isku dhaceen. asagii wuxuu iga codsadaa mar waliba inaan isku laabanno. walaalahayga laba baarmiyi waxaan ku codsanayaa inaad arrinkaaga ula talisaan. ninkii ma ku laabtaa mase qori iyo qiiqiis waa la isla tuuraaha? ninkii walaashay shala damcay ha ku laaban inaad leedihiin. waxaynu rabnaa labadaas qiso inaan ila wadaagno. fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo Lababaar Media ay tahay markii kugu horeysay, waxaynu kaa codsanaynaa inaad la garayso page-ka Lababaar Media. haddii qaybta YouTube-ka aad ku jirtidna fadlan subscribe saar. haddii uu noqdo barnaamijkan barnaamij la dhacdana waxaynu kaa codsanaynaa inaad asxaabtaada la wadaagtid si aan u helno asxaab tiro badan.